السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. qodobo runtii aanu arkay inay dhalinyaradu inay ku baraarugsanaataa inay muhiim yihiin ayaan maanta halkan idin kula wadaagaya. qodobka hadaba ugu horeeya ee aan jecelahay markaa inaan dul istaagno ee cadawgeena koobaada maanta haddii aynu noolahay waqtigan casriga ah waa Facebook ama waxa loo yaqaano social media gaar ahaan Facebook. waxaynu wada ogsoonahay markastoo aynu soo kacno subaxdii in ay dhacdaba in fara badan oo inaga mid ah anigu aan ka ahay inaynu isku dayno markiiba inaynu eegno bal wixii markaa intaynu hurdnay xalay dhacay taasoo markaa aynu ku micnayn karayno inaynu la qabsanay waxa loo yaqaano social media networking sababtoo ah la qabsigaasoo markaa isu bedelay hab daraaga ama hab addicted loo odhan karo waa nidaam aad runtii inoogu faafay oo dhalinyaradu markay sida u soo kacaan subaxii halkay ahayd inay duca akhristaan tasbiixsadaan cibaadaystaan laga yaabo inaad markiiba xagga mobilka aad u orado oo markiiba aad eegto bal wixii xalay ku dhaafay sidoo kale waxa dhici karaysa marka qaar xilli aad shaqaynayso shaqadaas oo marka xasaasiya oo la oran karaba xilliyada qaar inaad shacab u adeegayso xarun caafimaad oo kale ama isbitaal aad joogto inaad mar walba dhagaha kula jirto oo social media aad mar walba Facebook dhagaha kula jirto TikTok dhagaha kula jirto aad wax dhageysanayso kadibna ay dhici karto marka qaar inaad khaladaad ku gasho isla markaana qof dhan naftiisa aad halis gelin karto marka qaar waxa dhacda dadka had iyo jeer shaqaalaha ah ee aynu wada garanayno ee shirkadaha u shaqeeya waxa iyagana runtii ay khaati laga taagan yahay oo aynu oran karnaa dhalinyaradii ay aad u adeegsanaysaa inay aad u daawadaan waxyaabo kala duwan isla markaana ay kaga mashquulaan shaqadii loo dirsaday waayo markaad qof shaqaalaha tahay waqtiga waa laga iibsaday waxa xaq ugu leh inaad waqtigaas siiso ee qofkii aad u shaqaynaysay سادرتين هديات سودح جلسة رحمة كله إن هذا وحداوته إن هذا شغلي كم مشغولشوا وحين نقول إنسان إن جلسة دم بيا وحد كل شيء سن نتكبح ضياء وكلا عمل مركب واحد عادين فربضا إن قفك وضيعوا شغلي مركب الله دري يسوى مركب كم مشغول أيه استعمالك أذيك براه بشدة واحد كلون عادين فربضا إنه هذه شير أما بس إنه صار نامه أما إنه ودمرنا أما إنه شوقنا بقى وشقة إنه هذه شير هذا ناس ذوكله إنه channel هذا يوتيوب حماة السوقي يا مانتي isku dhacay ya maanta is haysta ya ma garanaysaa waxa laga yaabaa adiga waxa ka soo galaya inay aad u yarihiin oo wax nafcile aan ka ahayn entertainment ma weelo inaad qosasho inaad marka qaar murugooto labadaba aad isku haya waqtiga casriga aynu noolahay qofka dhalinyaradii labadaba isaga isku haya inuu maanta oo dhan murugeysnaado oo muruga la noolaado iyo inuu maanta oo dhan faraxsanaado oo farxad ku dhamaysto isaga isku haya waa muddo laba afle marka social media waxaan oran karnaa inagu aynu wax soo gelino si aynu uga faa'iideysano waqtiga inagu socday aynu eeganeen daawanayno waxa dhici karta marka inaad uga faa'iideysan karto dhinaca wanaagsan adigoo marka ganacsigaaga soo dhaxmarinaya oo ganacsigaagi marka ku sii deynaya social media laba inaad adigu channel yeelan karto channel YouTube marka ama Facebook ama TikTok oo marka barnaamijyo wax tar leh aad dadkaaga ugu soo gudbin karto ama inaad sameyn kartaba waxa loo yaqaano xilliye ku gaara oo online ka aad soo fadhiisato isla markaana dadka aad uga faa'iideyn karto marka khibrad ahaan wixii aad khibrad u leedahay ama way aragnimo aad u leedahay ama aad u soo joogtay intii aad noolayd waad uga faa'iideyn karaysaa laakiin taa bedelkeeda haddii aadan wax dana oo maanta ama lacag aad ka sameeyeen social media laakiin aad mar kasta la qabsatay inaad isticmaasho barihii bulshada taa waxaynu oran karnaa waa dhinaca negative-ka oo mar walba waxaad ka murugoonaysaa waxyaabihii ku dhaafay marka qaar dagaal aad shaqo ku lahayn waxba aanay ka soo galay bal laga yaabaa inaad qayb ka noqoto dagaal qabiil waxa laga yaabaa dagaal magaalo dagaal wadan dagaal ka dhacaya meelo kale qurbe inaad qayb ka noqoto oo ku dhaxmilanto waxa laga yaabaa marka qaar inay dhacdo taasna waxaynu oran karaynaa waxay markaa hoos u dhigaysaa inaga meeqaamkeenii haddaynu meel walba ka soo muuqano oo meel walba aynu markaa qayb ka noqono wixii ka socda si aynu markaa mudida labada af leh social media uu leeyahay aynu uga faa'iideysano dhinaca wanaagsan waxa qurux badan inaad mar walba ka joogto side-ka adiga wax ku soo gelinaya side-ka adiga wax ku taraya oo ah inaad adigu production samayso wax soo saarkaas oo marka ah inaad adigu soo geliso tusaalahaan oo kale axaadiis siirooyin qisas muhiima sidoo kale inaad adigu barnaamijyo curin karto kadibna aad bulshadaada u soo gudbin mar haddii aad haysato mobilkii iyo laptopkii waqtigii iyo khadkiina aad hayso waqtigiina waad haysaa khadkiina waad haysaa mobilkiina waad haysaa laptopkiina waad haysaa soo gudbi waxaad ku wanaagsan tahay si looga faa'iideysto si aad markaa uga baaqsato waqtiga faraha badan la inaga galaya khasaaraha ee marka ay inaga galaya social media isla markaana ayna waxba kala soo noqonin si aynu markaa wax uga soo noqono maanta waxaynu ka faa'iideysanaynaa casharkeena xilliyada marka aynu firaaqada haysano
ee aynu u aragnay inaan waqti fiican haysano inaynu inagu wax duubno ama wax codayno ama aynu wax soo tabino ama aynu su'aalo markaa keeno si looga faa'iideysto dadkuna ay wax uga faa'iideystaan waqtigooda qiimaha leh aynu inaguna ugu beeqaamino waa mahadsantihiin